السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. halkan nagala socotaan daawadayaal waa Somali State News oo aad uga barateen wararka iyo warbixinooyinka iyo waliba dhacdooyinka waqtiga loogu hadalhayo inta badan yahay ku saabsan geeska Afrika siiba Soomaalida. waxaan idin haynaa war degdeg oo hadda soo dhacay waxa hadda isla waqtigan soo gabagaboobay shirkii golaha fulinta ee xisbiga dimuqraadiga shacbiga Soomaalida kaas oo aad loo sugayay maanta. inta aynaan u gudagelin arrimahaas waxaan idinka codsanaynaa anagoo aabahda Somali State News in aad nagu caawisaan subscribe share comment si ay dhirgelin noogu noqoto anaguna aan u noqono kuwa idinka idin shaqeeya. haddana waxaad ku soo dhawaataan warkii oo faahfaahsan. shirkii golaha fulinta ee xisbiga dimuqraadiga shacbiga Soomaalida kadib waxa saxaafadda ama warbaahinta Soomaalida ESRTV la wadaagay xogihii ama go'aamadii ka soo baxay ee shirka madaxa xarunta dhexe xisbiga dimuqraadiga shacbiga Soomaalida injineer Maxamed Shaale Isaaq wuxuuna yiri sida tan. waxaan hadda ka soo baxnay shirkii guddiga fulinta xisbiga dimuqraadiga Soomaalida. shirka waxaa shir guddoonka gudoomiye ku-xigeenka xisbiga dimuqraadiga Soomaalida mudane Mustafa Maxamed Cumar. guud ahaan ajendaha shirka laga wada wuxuu ahaa sidii hadda ku aan shaacinay waxaan mabda ahaan isla garan inaan u baahanay inaan siyaasadda dalka aan qayb ka noqono goobta ama madasha lagaga talinayo siyaasadda dalka inaan qaybteena ka qaadano fariisano miiska talada ay ka go'ayso xisbigan aan muddo dhowr sano ka badan aan bahwadaag tahayn uu u gudbay inuu sameeyo xisbigan cusub ee la yiraahdo Prosperity Party ama xisbiga barwaaqo. guud ahaan golaha dhexe xisbiga dimuqraadiga Soomaalida wuxuu dhigtay shuruudo san shacabka la wadaagno oo ugu horeysa xuquuqda ismaamul luqadda af Soomaaliga ee ka mid ah luqadaha heer qaran in xuquuq dhismeedka xisbiga dimuqraadiga Soomaalida ee sijir ay ka mid noqdaan ee aan la baabinay ka mid noqdaan xisbigan cusub ee la sameeyay in shacabka Soomaaliyeed xuquuqdooda ay helayaan si ay xuquuqdooda uga helaan xisbigan cusub iyo qaab dhismeedka xisbiga iyo guud ahaan qaab dhismeedka dawliga ay ka helayaan shuruudaha u dhigtay xisbiga golaha dhexe xisbiga dimuqraadiga Soomaalida waxaan u ballan shacabka u ballan qaadan taageerayaasha xisbiga in barnaamijka siyaasadeed iyo xeerarsaadka xisbiga cusub la horkeeno golaha dhexe iyo guddiga fulinta inay ka doodaan shuruudihii ay dhigteen guddiga fulinta golaha dhexe soo dhigeen ma ka dhex muuqdaan mise kama dhex muuqdaan kadibna go'aanka sida lagu qaato iyadoo taa laga duulayay xeerarsaadka iyo barnaamijka siyaasadeed ee xisbiga cusub baa la soo dhigay guddiga fulinta. ugu horeyn waxaa ugu horeeyay inuu xisbigan uu aqoonsan yahay ama uu ku halgamay nidaamka dastuuriga ee dalka ka dhisan si cad bay ugu qoran tahay in xuquuqda ismaamul iyo xuquuqda qowmiyadaha iyo shucuubta kala duwan Itoobiya uu dastuurka si xisbigan uu si adkeynay uu si xoojinay ayna ka go'an tahay in uu u tartamo inuu ku dadaalo ama tiirasha uu ku aasay ka mid tahay in dalkan uu ka dhaqan galo federalismkii sida saxda ah uu dhaqan sida dastuurka ku cadeeyay in qowmiyad walba ay u madax banaanaato maamulkeeda ismaamulkeeda iyo madax banaanida ay hesho in la dhaqan galiyo xisbigan u halgamay una taagan yahay bay saacad ugu qoran tahay. taas waxay meesha ka saaraysaa fikirka ahaa ma ku caddahay nidaamka federalismka ee xisbiga ma ogol yahay ee meesha ka saartay qodobka wuxuu ahaa luqadda af Soomaaliga deegaanka luqadda ku shaqeynaya xisbiga xeerarsaadkiisa waxaa ku cad in luqadda uu ansixiyay golaha xildhibaanada deegaanka ee luqadda af Soomaaliga ku shaqeynaya kasoo luqadda af Soomaaliga ay noqoto luqadaha qaran ee xisbiga uu ku shaqeynaya xisbiga xafiiskiisa heer qaran ee uu yeelanaya luqadaha uu ku shaqeynaya waxaa ka mid ah luqadda af Soomaaliga kaliya kuma koobnaan doonto deegaanka Soomaalida taana waa shuruudihii u dhigtay waana guul soo yeetay shacabka Soomaaliyeed in luqadda af Soomaaliga xisbigan uu qaato inay ka mid noqoto luqadaha heer qaran guud marka doorashada ku guuleystana uu ka hordhigi doono golaha xildhibaanada ay noqoto hay'adaha dawladda ee federaalka kala duwan ay ku shaqeyn doonaan luqadaha ku shaqeyn doonaan ay ka mid tahay luqadda af Soomaaliga ka mid noqon doonto taasina saas ay shuruudu waafaqsan tahay. shuruudda kale waxay qaab dhismeedka xisbiga dimuqraadiga Soomaalida degmo gobol ilaa iyo unugasaasi unugoosaad iyo heer deegaan qabsan ka dhisanba in sidii isagoo uu ku biiro xisbiga cusub ee aan meesha laga saarin shuruuday ka mid ah taana way ku caddahay. waxaa kaloo sidoo ka mid ah barnaamijka siyaasadeed xisbiga ee cid uu halgamay laga bilaabo ma taxgelinayo shacabka deegaanka Soomaalida shacabku waa xoolo dhaqato barnaamijyada siyaasadeed ee xisbiga uu diyaarinayo ma yihiin kuwo ka turjumaya baahida shacabka shuruuda kale ee taalay xisbigan cid uu halgamay waxa kooka xoolo dhaqatada waxa la ogsoon yahay xisbiga hore ee EPRDF bahwadaag tahayn wuxuu u halgamay wax beeraleyd muuna ogolaan wuxuu dhijir xoolo dhaqatada ma qaadi karaan revolution democracy ama ayuu democracy ma aqbali karaan laakiin xisbigan cusub wuxuu u halgamay u taagan yahay waxa kamid ah oo asaas u ah cid uu halgamay social peace kiisu waa xoolo dhaqatada
nidaamkiisa horumarneedna waxaa si cad uga cad in horumar isku dhafa laga hirgeliyey goobaha dadka xoola dhaqatada ay degan yihiin wax soo saarka xoolahana kor loo qaado sidoo kale deegaanada dib u dhacayna in mudnaan gaara la siinayo ku cad marka shuruuddii golaha dhexe dhigtay ay soo jeediyeenna sidaas ay ku waafaqsan tahay qaab dhismeedku way waafaqsan tahay nidaamka federaalku waa waafaqsan yahay luqadda af soomaaliga waa waafaqsan tahay saamiga ummadda soomaaliyeed ay ku leeyihiin xisbiga iyo xukuumadda inuu xaqiijiyo yahay waa isla garan xisbiga shuruudu soo dhigay in dhammaan qowmiyadaha iyo shucuubta Itoobiya ay xuquuqdooda ka helaan xisbiga cusub ay ku caddahay iyadoo la tixgelinayo dadka tiradooda xubnaha xisbiga uu leeyahay inay ay noqdaan shuruudaha qayb ka mid ah guud ahaanna uu xisbigan xaqiijiyo ka muuqasho iyo ka mid noqosho go'aanada kala duwan ee xisbiga hay'adihiisa kala duwan hadday tahay sidaas mataa siyaasadeed mid go'aan qaadasho in dhammaan qowmiyadaha Itoobiya ee ka mid noqday xisbigan ay ka dhex muuqdaan uu cadeeyay marka guddiga fulinta markuu shuruudaha fiiriyay golaha dhexe uu soo jeediyay barnaamijka si qoto dheer u wada hadlay xeerosaadka weegay wuxuu isla gartay inay muhiim tahay maadaama shuruudihii golaha dhexe ay soo jeediyeen ay danta shacabkeena ay ku jirto inaan ka mid noqono xisbiga cusub ee la sameynay inaan xisbiga ka mid noqono go'aanka ugu dambeeya waxaa iskala shirweynaha waxaa loo gudbin laakiin guddi fulin ahaan waxaan ku ansixinay inay muhiim tahay inay ummadda Soomaaliyeed ay miiska fariisay ka mid noqdo xisbigan cusub berrin waxaa loo gudbin doonaa golaha dhexe xisbiga dimuqraadiga Soomaalida kadib waxaan u gudbin doonaa shirweynaha si ay go'aanka ugu dambeynta u qaataan wad mahadsantii